يلا يرادو قف أنا سنة بدل كل طورن مايو قف أنا سنة ما هي نسومين لان ما لمريا كاسان لمريا وأنا مقلنا دقائق كان حسيتنا مقلنا دقائق مدح دقائق كان مقلنا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد marka ugu horeysa waxa salaamaya warbaahinta madaxa banaan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan inta ku sugan caasimadda Hargeysa waxaynu nahay saaxiibo isku dhow mar walba halkii leedku soo xiri jireen aniga waa la igu soo xidhay marka waa soo wada dhadhaminaan malaynaya marka waa maasantiin kadib 30 maalmood oo aan ku xidhnaa xabsiga Madheera iyo 7 maalmood oo soo dimaray maanta ilaahay nabad qabi nagu soo gaarsiiyay inaan halkan isku wareysano inoo sahlay baan u mahadnaqayaa waxaan ku bilaabayaa gabay uu lahaa ugaas cilmi warfaa oo leeyahay nin ilaray nin ugu lagaadsadii nin ilamaanayay iyo nin aan lurkayga jecelayn libina ii diidan iyo nin uu lihin dhigay halkii rag isku laacay intaas uu isagu laqan yahay loolkii ii xigaye nin wallow lufkaad igu lahayd waa hadhow lulo ugaas cilmi warfaa ayaan inta ka soo xigtay qodobka koowaad waxaan u mahadnaqayaa qoyskayga waalidkay walaashay oo aqalkeeda loo daatay xaasaskayga iyo ubadkayga oo culays badan uu ku dhacay dartay adkaysi badanna muujiyay aad iyo aad badan baa si tibaan leh waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shacabkan matalo ee soo doortay codkii soo siiyay ee gobolka Awdal waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel ay joogaanba intooda dulmiga iyo tacadiga diidan meel kasta ay joogaanba waxaan iyagana u mahadnaqayaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo intii karaakooga difaacay dastuurka qaranka balse aan wax tallaabo ah ka qaadin dastuur jabinta 3 sano golaha fadhiinay ee ku kacaysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi oo hogaamiyo iyagana waa mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa maxkamadda sare oo intii karaankeyga ama aragtay dadaalaysa inay markasta oo ma aragtay dastuurka ay jabiso xukuumaddu oo la isku yaaci gaadhay iyaduna dadka kala badbaadisa waa u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa hogaamiyeyaasha mucaaradka isbaaysiga gaar ahaan wadani iyo ururka ka intaasoo dhan aad iyo aad ugu mahadsan intaa markaan ka imaado ujeedada xaragaygu waxa laga lahaa ujeedooyin hooyba xukuumadda ku lahayd waxa la doonayay in awda laga rido colaad lamida tiilaas caanood baa la doonayay waxa la doonayay in lagu helo cimri dheer iyo in laga dhigto jid doorashada lagu diido waxa la doonayay in la geliyo deegaankayga xaalad amni darro oo meesha ka saarta dooda siyaasadeed ee aan qabno waayo ma jirin dambi aan galay ma jirin dambi aan qaran ka galay ma jirin dambi aan qof ka galay oo aan xari ku mitaysan karayn waxa la doonayaa waa kuma maxamed abib maxamed abib raba muxuu doonayaa bal isweydiinaya waxaan u sheegayaa ma yihiin nin aragtida uu qabo xarig iyo caga juglayn uga tanaasuli kara waan ugu celinayaa in badanna waan u qeex
ميه نين دجال له هليليو يدب ودك اللي جريدو لو حل على السكراني اللي جميل اللي كرتانا محمد أبي وحنا مسنة أركتدي مهات مجاد بين أنا ومسنة إن بدلنا وربعت ويجا مقشن أنا وحنا دونيو الدل كنا كهجاتنا دونيو أركتدي أنا مسنة ديار بانوه حرق سكداين أنا ودين تجعله لكن أنا قف الدليل من دوني أركتدي أنا مسنة ويودو قف الدوني ينقف دلو ودلادي لكن نولا يما سيدا درتي دانو ددكو إن نول هلان بان دونيا تاسانو تاغناي إن أنيق لي دلي وانا قولا وحنا الله way xidheen ayar bay xidheen marrona waa sheegeen haddaa bareeri dilisaan haddaa afka soo duubanaysaanba diyaar baana haddiise ay sii socoto ku tumashada sharciga iyo tacadigu waa waajib in cid kasta oo lagu xadgudbayaa ay istifaacdo diinta islaamkaana saawku qofku istifaacaya walaalayaal dan yarta ayaan qalbi jilicsanahay ee inta kibirsan uma qalbi jilicsani uma naxo caadifadaydu inta liidata ayay la jirtaa siyaasaddaydase caqliga ayaa xukuma garaadka ayaa xukuma calooshuna ma hogaamisaana siyaasadayda waxaan u taaganahay cadaalad iyo sinaan waxaan doonayaa dal iyo dad isleh oo ujeeddo ku midaysan baan doonayaa oo aan loo qaybin qabiil iyo xaafad waxaan doonayaa dalaan madaxdiisu ka ceeshin masaakiintiisuna aanay ku dhex gaajoonin baan doonayaa dadkooda ladan una sharcigu qaban ka miskiinkaana xabsiyada laga buuxiyo dal sharciyadiisa iyo qawaaniintiisa aan keliya lagu fulin dadka masaakiintaan doonayaa dal isla xisaabta ku xalaal iyo sharci ka yahay baan doonayaa intaasba waxaa iga maraga sida aan dalkiiyo dadka ugu shaqeeyey ee aan danaha shacabka uga doodayay intii aan xilka hayay gabiga afkuriyaa kusoo gabagabeynaya intaa waxaa leeyahay yay noqon baahidu baqayoo anaa riday baga iyo kufaafaan baacsa iyo tafiirgo ha ahaata baahidu kasbasaasay subagii biixi jabay kabkabidii hambukooday baantii bulsho licda kicinteed intaana afkuriyaa loo naxariistay ayaan ka soo ammaanaysanay sidaana damiirkayga ayaa ii sheegaya xaalka dalku haddii aan tusaale yar idinka siinayana waxaa ka mid ah xabsiga aan ku jiray ee Mandheera waxaa ku xidhnaa 700 oo qof kuma jirin mas-uul hantida ummadda boobay oo la xidhay kuma jirin mas-uul qof shacaba si qalada ugu xadgudbay kuma jirin xaakin intuu xukunka xumeeyey ee ummadda si cadaalad u xukumi waayay la xidhay kuma jirin kuwii ciidanka qaranka jabiyey kuma jirno xabsiga Mandheera qof kama xidhnayn kuwii dalkan xuduudihiisa soo koobena hal qof kama xidhnayn waxa ku xidhnaa dad masaakiina oo qaarkood dulmiyo cadcad oo dalkiisa lagu soo xukumay baa ku xidhnaa intaasana tusaalaydu ku filan qodobka saddexaad waxaan u gudbayaa reer wadalbana gudbayaan la hadlayaa muuse xariga maxamed abi maaluu ii jeeday mise reer wadal buu jeeday labadeeda kuu jeeday qodobada soo socda cadaynaya muuse oo booro ma jooga inuu xarigayga amro ujeedo nooco ayuu ka lahaa maaliga ayuu ii jeeday mise reer wadal ayuu jeeday muuse wuxuu jeeday reer wadal buu jeeday waayo xarigaygu wuxuu amri karayay isagoo Hargeysa jooga wuxuu amri karayay isagoo maad aragtay xarunta madaxtooyada joogu amri karayay muuse iyadoo laga sugayay inuu raali gelinayaa boolojaas ka bixiyo godobtii iyo dambiguu ka galay guud ahaan reer wadal oo dhan ee uu ku sameeyay ugaaskoodii xabadda nooloo la dhacay markuu boor ma tagay halkii boolojaas laga sugayay wuxuu yiri wardada boolojaas u qalma ma tiidine kan kale dib meelaha ka hadlaa wan xiraya ama buu soo bixiyaan u xiray sidaa darteed aniga muu jeedin idinku idin jeed wuxuu xarigaasi waxba ma tiidina isagoo cod doonaya inuu aniga xidhan maanta wuxuu waxba ma tiidina waxba idin kama baahni cod haddaan idin ka baahdo bay ahayd waan idin ka iibsan
ama xoog baan idinkaga qaadanaya markaa kuwiina wax garanaya xidhxidho ujeeddada taasina waxay caddaynaysaa inuu ree awdal ujeeday bay caddaynaysaa un aniga jeedin haddaan wax intaa ka badan idinka baahdana wuxuu yidhi sidaan idin maali jiray baan idin maalaya waa garanayaayo kolba doqon baan boorima ka soo qaadanaya ujeedooyinka aan leeyahay ka dhex fuliyaan soo qaadanayaan wixii noole aragtideeda diidana dhegtaan ka dhufanayaabee taasina waxay caddaynaysaa inuu muuse aniga ii jeedin oo reer awdal u jeeday haddaa garanaysaan iyo haddeedaan garanaynba wuxuu idiin samaystay yidhi wuxuu samaystay kala qaybi oo ku dhex abuur kuwa gef kasta oo aad gelayso kuu fuliya kuwaasina way badan yihiin iyagoo waaweyn iyagoo yararba muuse u shaqaynaya ugu dambayntii reer awdal waxaan leh waad ku mahadsantihi sidaad ii dhegaysateen maalintii hore ee aan isku nimi boorima waxaad mar labaad ku mahadsantihiin sidaad ii dhegaysateen anoo jeelka ku jira oo xidhan oo aydaan u samaynin wixii uu muuse doonayay oo ahaa in mudaharaad iyo dagaalu ka dhaco gobolka uu ka helo cimri dherer iyo maad aragtay iyo waqti uu doorashada ku diido uu ka helo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya dad badani waxaa laga yaabaa inay dhaliilsan yihiin markii maxamed abiib maad aragtay la xidhay maxay reer booraba u hadli waa u mudaharadi weyn anaa diiday anaa kuuri fadhiya maanta wuxuu maalin walba muuse doonayo halka kalaan ka taagana muuse hadduu mudaharaad doonayo nabadaynu doonaynaa maalinta una mudaharaad doonayno waa lagu mudaharaadaya muuse aad iyo aad baa taana ugu mahadsantihiin walaalayaal reer boorimow reer awdalow taariikhda dulmiga iyo qoorjabinta iyo dadkeennu anigayguma bilaamin waxaa tusaaleydu ku filan in madaxweyne muuse biixi uu maalin cad uu halkaa ugaaskiina xabad noolnool kula dhacay qofna kama hadal dadka kale jamhuuriyadda somalilan ka soo jeeda madaxda dhaqanka ah ee beelahaanu dalka wada leenahayna kamay hadal mararka qaar waxaa kala garan waayaa muuse iyo kuwa dibadda jooga waa kala garan waayaa waxay ahayd inaa abolojes dhaqan laga bixiyo waayo maalin walba madaxda dhaqanka ee burco kuwa berbera iyo kuwa hargeysi markay dhibaata ka dhacdo saddexdaa magaalo dhexdooda way gurmadaan way yaacaan milyan baa la bixiyaa oo lagu kala furtaa dadkaa dhexdooda markay dhibaata dhacdo laakiin marka dadka kale la dhibaataynayo intaad cimaamada huwataan ayaad hodheelada city balasa maasoor iyo ambasator iyo maxaa la yidhahdaa maasoorka berberaad ku dhuumataan taasina inama dhaqayso marka dad sool ayaa shalay toole markii la dulmiyayey waa daawanayseen ee dagaalku bilaabmay guddiga habar jeclaa daawanaya dhaqanka habar jeclaa daawanaya ka garxajis baa daawanaya ka habar wal baa daawanaya markii laagi gaclibaax dhibaatadu ka bilaabantay waa guurayseen waa yaacdeen oo maad aragtay dhibtaa inaad madaxa qabataan baad ku daydeen intiina ganacsatada waaweyn ee dahabshiil iyo maxamediyadii ugu horeeyaana $1 milyan lacagoo magabay bixiyeen adeer dadka kale marka la dhibaataynaya haddaa ka qaban weydaan kuwa dulliga ee siyaasadda usoo doorateen ee hargeysa fadhiya haddaa ka qaban weydaan dee ma noqonayso si loo wada noolaado la garan maayo reer boorama waad ogtihiin dad ganacsataa oo wax soo iibsanaya oo hargeysa u socda ayaa 2009 jidkaa lagu gowraco lagu laayay cid la maanta xisaabisay iyo cid loo xiray iyo cid loo dilo midna ma jirto maalintaasaa cirdigiin iyo sharaftiina la banaystay markaa xildhibaan la xidho agtiina waxba kama aha anigana agteeda waxba kama aha saraakiil ciidan baa la iska laayay iyagoo shaqo qaran ku jira oo gobolada bari lagu dilay cid wax iska weydiisa ma jirto sidaa darteed waa iska caadi maxamed ayuu la xidho in ugaaska la rasaaseeyana wax iska caadiya waayo marada laynagama laabta maanta waxa keenana waa siyaasiyiin weeye iibsada weeyaan dhiiggiina waa siyaasiyiin iibsada dhaqankiina waa siyaasiyiin iibsada sharaftiina oo doqmo ah iyo salaadnin doqmo ah oo maalinta qof xul loo galo maalintaasaa shaah la siiya shaah oo la yidhahdaa hadduu xildhibaan xidhayo xildhibaankiina iska dhaaf maxaad kaala saado bakshiishka qaado iska qaata haddii qof la dilo kaasaa maalintaa qaata maxaa la yidhahdaa bakshiishkiisa haddii qof la uus aaso kaasaa qaata maxaa la yidhahdaa bakshiishkiisa qaata kuwaasaad u taqaanaan madaxa waxaan filayaa laakiin inaad hadda kadib isbedel idinka soo muuqdo waxaa la diido dagaal laga furaystay in dalka la wada yeesho maxamed abiib waa ka hadlay marar badan madaxweynaha jamhuuriyadda ka maxkamadda jooga ka xeeraalinta jooga
كما دركتي ان بوليس كجوجا كسردون كجوجا wax alla waxa habeenkii ka shaqeynaya waxa dambiile wada ka jooga aan eegayna aniga ugu foogani waa kuraasida wada yeelan lahayna qayb kamida dadka anigu aan matalay fadhi lahayn taana in waa la dhageysan waay waxa soo dhawaatay xilligii la dhageysan lahayo qasab lagu dhageysan lahaa soo dhawaatay walaal ya reewdo waxaan dilaah waa inaan halkaas ku eekaato ma sii socon karto sidana kuma sii jiri karno haddii aad isla qaadataan sidan baan ku sii jireynaa dulinimadaas aan ku noolaanaynaa maxamed abib idinka mid buu ahaanaya because qofku ummadiisa kama carro kama tago markii reer bani israa'iil ay hore u socon kari waayeen ee laga xoreyn kari waayay qabdiinta nabi muuse iyo haaruun calayhim assalaam kamay tegine yatiihuna fil ardi di ilaahay afarta sanadood baa tii ku jireysaan way kula jireen iyagoo reer bani israa'iil afarta sanadood oo tii ku jirana maxaa la yiraahdaa way ku dhinteen afartii sanadood tii dhexdooda ku dhinteen nabi muuse iyo maadartay iyo nabi haaruun calayhi salaam aniguna idin kale kamid ahaan iyo tii haasan ku jiriya waayo waxaan saw leh xaq ayaanu leenahay inaan dalkeena xorriyad iyo karaamo ugu noolaano haddii ay dhabidi ka tahayna taasna cidna kama baryayno waan qaadanaynaa waxaan leenahay wax idinaga haysataa ma jirta innagaa isku maqan innagaa waxa aan inaga maqan innagaa iska haysana wallahi innagaa iska haysana doqmiheenna inaga hayaynan inaan xaq waxaan mudanayno in dadkeena la ilaaliyo in dadkeena la sharfo in dadkeena maadaragta la karaameeyo cid kale mas-uul kama hina innagaa ka mas-uula diyaar muuti inaan isbedelno walaalayaal ugu dambeyntii reer Booramo reer Wadalo maanta waan baraarugno jiilka cusub uu baraarugay waxaana jira dareen midaysan oo aan aqbalin dulmiyadii hore u dhacay iyo wax lamida si looga taqalluso dhacdooyinka hore dadkaan matalo waxaan farayaa midnimo iyo wadajir baan markuu horreeyay farayaa sidoo kale waxaan farayaa in la dagaalamo ma aha jidka kaliya ee wax lagu saxo waxa jira habab nabdoon oo ka xikmad iyo waxtar badan dhimasho iyo dhiig daata dhiiguna waa habka ugu dambeeya ee dulmi lagu diido sidaa darteed maanta xikmadda aan idin farayaa waa inaan muuse codkeenna kaga aarsanno isaga iyo kuwa la midka ah waa in codkiinu 180 kun ee codo yaalla muuse maanta laga codeeyo taasi isaga maaha digniinu maaha isagun ciqaabu maaha waxay digniinu tahay oo ay fariinu tahay kuwa ka dambeeya inaana idinla imanin edab darooyinka oo muuse ku sameeyay sharaftiina iyo karaamadiina kuwaasina digniin buu codka buuran ee aad maanta bixisaan kuwaana digniin buu yahay maanta waa inaan jamhuurka codkeenna isugu geynaa inaan muuse ummadda ka hor dhaqaajinno waa in aanu cod la sheego inaga helin muuse oo ummad Soomaaliyeed oo dhan baa idin la yaabi doonta haddii sanduuqa muuse uu dhigtay Boorama Saylac Luhaya dila uu dhigtay haddii cod buuran lagu rido wallahi ummadda Soomaaliyeed oo dhexdeeda dad ka takooran oo doqma oo liita oo hablowga la guursan baa noqonaysa waa waqtiin marka Hargeysa joogta wax la idin kaftama rag ma laha samarrook yeen dumar beelihii baa la yiraahdaa wallahi dumarna ma laha idin la soo socota way rag maradu de way joogan wax qooraleeyay laakiin qooradaanad isticmaali karin saaxiibood wax iskaga dhici karin de dadku saasay qooranaya saaxiib sida darteed bal inta dagaal ka hadlin bal muuse ka coday horta taasna wallahi wayna jabino on taariikhda 10 mahadda loogu dhigo muuse weey waa hadii aad doonaysaa inaad noolaataan karaamo ku noolaataan qodobka afraad waxa jira qodob markaan dibay joogaan wareys ka bixiyo aad loo faaqiday baa jira oo ku saabsan jabadiya sanam dad badan baa ka falceliyay waan ku celinayaa in la yiraahdo qof aan sanayn badalka loo dooran maayo qof aan sanayn hayni Soomaaliland ma la maraya halkaas aan la maraya taana ma aqbalayno waan ku celinayaa haddii dab la soo hindhisayo ma aqbalayno Soomaaliland baan ahaanayna hadda Soomaaliland la diido te waa wax weeyaan te waxay adaas ka haysanay wixii kala tay wax intaas ka badanna oo ma aragtay saxamba boori wadankiiseen ma yarka Hargeysa oo le qofkii aan sanayn hayni Soomaaliland ma hadalkay ku asu jawaab u ahaa kuwan nooca u fikiraya ayuu hadalkaygu jawaab u ahaa
markaas sabab loo buunbuuniyo oo looga dhigo nin dambi ka galay diinta ma jirto dadweynaha reer Soomaaliland baa la hadlaya walaalayaal waad mahadsantihiin waan idin ogahay dareenka tugan intiina ka dhiidhida gabood fallada iyo xumaanaha ay xukuumadaha fashilmaa falan waxaan nahay ummad midoobi karta sida kaliyeenu ku midoobi karnaana waa cadaalad iyo sinaan cadaalad darra ayay soo lugooday cadaalad baanay noo wadadana taas laanteedna midkeedna ciishi maayo walaalayaal cadawgeena ugu weyni waa ninka isla taas diidan ee dagaal oogaha ah ee dhexdeena isku dirka ka wada weeye kaasina waa Muuse iyo xukuumaddiisa weeye oo dafiray heshiiskii qaatamo dhagaana ka furaystay oo diidan wax wada lahaanshaha iyo haldoorka uu u taagnaa Cali Khaliif Galeed maanta anagu aanu taaganahay dhagaa ka furaystay kaasa cadowgeena ma ninkaas baa golo la soo joogsan kara difaac dal iyo wax la mid ah muxuu difaacdaa sawka sidii aboorkii dalka gudaha ka dhameeyay adduunkiina ka takoray Soomaaliland dhammaanteen reer Soomaaliland waxaynu dhibano wadanahay maamul xumada macagegnimada musuqmaasuqa nidaamka Muuse Biixi sidaas darteed waxay nagu wada waajiba inaynu maanta farteena ku ridno oo aan gobol iyo degmo kamida dalka aan cod ka helin oo aad iska dhaaftaan qabyaalada iyo kala qaybinta way ku wada inaad iska dhaaftaan wax garadka reer Soomaaliland ayaa la hadlayaa walaalayaal waxa la yiri doqonto dulqaadka doqonnimo ay moodaa dulqaadka dadkaygu doqonnimo maaha dagaal way yaqaanaan horana colaad reereed Soomaaliya oo dhan way soo daashadeen cid wax ka dheeftay iyo meel lagu kala adkaaday toona ma jirto oo Soomaaliya kala adkaatay nabadda dhowristeeda dadkaygu wax badan ayay ugu dulqaateen oo dhibaato oo idinkuna aad qisantiin Soomaaliya oo dhan marxaati ka tahay xilka nabadda dhowristeedu hadda kadib reer awdalo kaliya ma saarna maanta intii ka dambaysa xilka nabadda dhowristeedu reer awdalo kaliya ma saarna wax garadkeegana ma saarnaan karo nabadda waxa lagu ilaalin karaa sinaan iyo cadaalad taas ayay Soomaaliland shisheeyaha kaga adkaanaysaa cadowgeedana kaga adkaanaysaa reer Soomaaliland waxa la joogaa maanta sidii dalkan loo wada yeelan lahaa iyadoo loo siman yahay waa xujoor taala wax garadka indheer garadka culimowdiinka aqoonyahanka madaxda dhaqanka beelaha degan gobolada Sanaag waxa la yiraahdaa Burco Berbera iyo Hargeysa ayuu taala in dalka la wada yeesho oo ay tahay fariin aan si adag u gaarsiinayo oo aan ahayn tu indhaha laga qarsanayo haddii kale maal dhow waxa arki doontaan iyadoo sidii sool waagu xagga dambe ka bariyay arki doontaan waagiinu xagga dambe ka bariyay ay arki doontaan idinna ma wada noolaan kartoona waan ognahay laba reer oo Soomaaliyeed oo amarka booliska iyo amarka maxkamaddu meel ka soo wada baxo maanta waxa jira isaaq iyo gadabuursa jira waxa kale Soomaali laba reer oo amar isku mid meel laga xukumay ma jirto waan ku faraxsan oo sharaf bay noo tahay waa karaamo aynu dheernahay dadka laakiin karaamadeena ilaalina la doonaya inaad dhinaciina ka ilaalisaan baa la doonaya inaana annagu dadkeegu intii ay tanaasuli karayeen way tanaasuleen intii ay ka dhiigmadooba rag baa dalka nabadiisa loo liqay oo si xun loo dilay oo la qalqalay iyago ganacsi doonaya sidee waay markaa hadda kadib siduu sii soconaya musuqmaasuq siduu sii soconaya xaaladaas siduu sii jiri karaysaa doqonnimo ma ha dulqaadku ugu dambayn sida aad u gurmataan maalintay dhexdiina wax yimaadaan ama anagu idinku soo gurmano waan marka dadka kale la xumeynayana ka qabta kuwa daalimiinta ee maadartay dalka xukumiye ka qabta oo aan maqalno dhaqdhaqaaqa ganacsatada aan maqalno dhaqdhaqaaqa madaxda dhaqanka aan maqalno haddii kale annagu waxaan u qaadanaynaa inay tahay wanka macashay qabo adna gowrac iyo mari dhiiganaan muudsado intaasaan warkaynaa waxaan idin xasuusinayaa maalintii raggii jidka lagu qalay halka lagu qalqalay madaxda dhaqanka ee beelaha saaqo dhali boorma yimaadeen waxay yiraahdeen walaalayaal maantana dhigta raggii dambiga sameeyay naga geedka ku soo xidhan ilaahay baan idinku dhaariyay kuma ku soo noqday kuma dib ugu hadlay dhacdadaas oo madaxda dhaqanka kamid ah
عيدا كي قرن كلها با شعب كان بو موسى اسكو جبي بورتك علي بحبل اسكو دلي دعده كوينيدو كدعده غدو ما جرتو 10 maalmood baa lagu dhameeyay milyan of dollarna lagu bixiyay muusana jidkii uu ku socday dulmiga waad ka leexiseen waxana aaminsanahay dadka kalena inaad ka leexin kartaan laakiin waa nagu daawanaysaan waxba ka helimaysaan daawashadiisa waxba ka helimaysaan ugu dambeyntii waxa kaga baxayo baaq dhar u diraya reedool anu waan iman doonaa soo dhaweey laakiin ma jirto iskay baan u imanaya boori baan imanaya waalidiin imanaya dadka bilaadanka kuwa dulinimada kula dhaxnoole ee iyaga u kala fataalay ee iyaga ma aragtay duqonnimada iyo ma aragtay iyo shactaroolnimada kula dhax jira ee kolbooraya hebel buu la socdaa waa sax dalkan ka mid baanu nahay xisbiyadiisaanu ka mid nahay ma aragtay waan aragteen ninka ma aragtay ku dilay ku noolaniyo waa aragteen maxamed aygu waxa weeysateen nin cidla iska jooga inaan cidla iska joogo waxa ka aragteen dagaalkii Muuse lagu qaaday ka aragteen maxkamadda sare lagaga qaaday kii baarlamaanka lagaga qaaday kii ma aragtay madaxda xisaabta iyo isbedel doonka ay qaadeen baarkiisa ragga aan wada socono ima tiru dagaalamay aan wax jacayl oo gaar ah u qabaa ma jirto waan arki doontaan 40 maalmood ka bacdi markaad ka codeysaan hadaad 150 kun cod ku ridaan si wanaagsan bay idin la dhaqmi doonaan hadaad sidiini madaxweyne ku xigeen aan waxba goyn waad ogtiin Cabdiraxmaan Sayid gurigaas ku xidhay Muuse ku xidhay ku xigeenka dabana halka buu ku xidhaya iyo wuxuu taraya cirran halkaas ku xidhaya war ku xigeen waxba kala hadli mayno kuwa xukuumaya iyo odayaashoodan la hadlayna waad arki doontaan 30 maalmood ka bacdi hadii uu jidkaas oo kala maro cirro oo Cabdiraxmaan maro oo uu jidka Muuse maro oo dadkayga karaamadooda ilaalin waayo oo kuraasida si fiican ugu qaybin waayo maxamed habiib idaacadaad ma tiga dhigeysanaysan badriye burumo iga dhigeysanaysan laakiin ha oranina laba nin oo isku mid ah bilaadka laba qof oo isku mid ma jiro Soomaalidu waxa tiraa uur hooyo ayaa laga bartay uur hooyo ayaa laga bartay 40 maalmood ka bacdi aan isku sinno laakiin maanta haddaydan caradii ugaaskiinu aanaydu ku jirin anu maxamed habiib haddaad isleedihiin wuu kululiyo kuleel baa loo xiray siyaasad baa loo xiray haddaad isleedihiin waa ugaaskiinu ma siyaasad buu ku jiraa idin ugu dambeyntii ugaaskiinu ma siyaasad buu ku jiray ma kulmiyo ahaa ma kaab uu ahaa ma wadani buu ahaa yuha maxaa loo rasaasiinay intaasi haddaanay idin xanuujin karayn wax idin xanuujiyo kala garan maayo aad iyo aad baad u baasantihiin warbaahinta madaxa bannaan hadday su'aal qabto waa ka jawaabaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.